بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا تيفيغا ايرو تيفيغا ايرو waxaynu ugu talagalnay in aynu bulshada Soomaaliyeed kaga haqabtirno arrimo badan oo xasaasi ah ayro waxa uu yeelan doonaa barnaamijyo musalsal ah oo isugu jira arrimaha siyaasadda arrimaha suugaanta isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda ku nool guulaha ummadda Soomaaliyeed ay hiigsanayso ama ay horay u gaadhay iyo arrimo ku salaysan cirqa siyaasadeed ee maanta taagan haddaba barnaamijkeena maanta waxaanu ku soo qaadan doonaa xubin oo aynu ugu magac darnay taajka dhilada dabcan waxa weeyaan waa colaado aan lahayn ama aan la garanayn xilliga ay dhammaan doonaan ama ay dabargo'i doonaan dabcan kufsiga iyo xawaal wadareedka mowraduuga siyaasadeed isriixa isirsufaynta intaba waa mararka qaarkood arrimo la oran karayo waxay sad u heleen bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan geeska Afrika maanta taajka dhilada waxa inoogu marti ah mudane Daahir Xasan Cabdullaahi oo ku magac dheer Daahir Tamuuje ahna sarkaal ka tirsan xubnaha dhexe ama golaha dhexe ee jamhadda ONLF Daahir ku soo dhawow marka hore Airo TV بسم الله الرحمن الرحيم فيصل aad baad u mahadsan tahay adiga iyo bahda TV Airo aad baan idinku mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa magaca iyo macnaha faraha badan ee qiimaha weyn ee u sheegtayna inuu noqdo mid ku guuleysta ummadda Soomaaliyeed oo moodbariyaha dambe in aad iyo aad xagga media lagala dagaalamaya inuu noqdo mid u soo baxo ummadda Soomaaliyeedna u horseeda wanaag Soomaalinimo islaamnimo isku duubnaan ayna ku gartaan aayahooda mustaqbalka ah ee Soomaalinimo iyo jiritaankoodaba aad baan idinku mahadcelinayaa waan mahadsantahay waa hagaag haddaan intaa kaga sii gudbo aarartayda barnaamijka dabcan sidaanu sheegnay barnaamijkeena maanta wuxuu noqon doonaa taajka dhilada marka waxaanu ku soo qaadan doonaa arrimaha murugsan ama isriixa siyaasadeed ee ka jira geeska Afrika gaar ahaan dhulka loo yaqaano Careedig mar labaad waxaan doonayaa inaan halkan ka sheego xubinteena maanta aynu ugu talagalnay ee aynu u bixinay taajka dhilada wuxuu noqon doonaa barnaamij taxana ah oo aynu ku wareysan doono dad badan oo haldoor ah Soomaaliyeed oo aynu wax ku tuhunsannahay marka koowaad mudane Daahir anoo mar labaad kugu soo dhaweynayo Airo TV waxaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo buuda ama dhumucda ama ujeedada dhabta ah ee ONLF waxa ay u taagan tahay adoo u soo bandhigayo bulshada Soomaaliyeed ayna daawanaysa بسم الله الرحمن الرحيم فيصل mar labaad waan ku mahadcelinayaa adiga TV-gaba runtii waa mawduuc mug weyn mawduucad ka hadashay arrimaha murugsan ee faraha badanna dabcan wixii Ilaahay inaga gaarsiiyo oo aynu asibno aynu ka hadli doonaa haddaan u soo dhaadhaco su'aashaada ah ujeedada ama hadafka ay ururka ONLF waa urur shacbi ah oo ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ee Itoobiya guumaysato runtiina ma aha urur hadda bilowday ama maanta in la barto u baahan halgankii soo jiraanka ah ee gobolka ka jiray ee Soomaaliyeed ee xilligii Axmed Gurey soo bilowday xilligii Soomaalidu ayna xorriyadda qaadanin intaas halgamadii soo jiray qaybtii wali u taagneyd inay dagaalanto ayay ururkan u matalayaa maxaa yeelay halgankii Axmed Gurey kii Sayid Maxamed Abdullah Xasan kii SYL Nasrullah OLF NSL oo waqooyiga ka jiray Soomaaliya halgamadii faraha badnaa ee gumaysiga lagula dagaalamayay intii Ilaahay u ogolaaday inay xorowdo magacyadii marka lagu dagaalamayeen magacii lagu dagaalamayay ogaadeen ama Soomaali galbeed ama dhulkaas Soomaalidu ay leedahay yacni dadka istilaaxa waxa jira ay dadka Soomaaliyeed inta badan isticmaalaan oo yiraahdaan dhulka Soomaalidu degto ma aha mid Soomaalidu ma degtay waa dhulka Soomaalidu iyada leh dhulka ay Soomaalidu leedahay dhaqaaqyadii gobonnimadoonka ay ka jiray ayay matalaysaa ujeedaduna waxa weeye in dadkan ay maalin u gaaraan Ilaahay markuu bani aadamku uu abuuray ee uu qofku dhasho wuxuu dhashay isagoo xor ah in ay xor ay maalin ku hamiyaan inay dad xor ay yihiin ayay ujeedada u dambaysa weeye
waxaa weeye xoojinta dadnimada midnimada ummadda soomaaliyeed iyo aayaka taliskooda in ay gaadhaan yay jabhaddani u taagan tahay. waana jabhad shacabka rabitaankooda ka yimid weeye. marka sidaas way jabhaddan runtii haddaan in yar oon kusoo koobay inaan qeexno inuguma qaadan maalin iyo 2 toban kuma soo koobi karo, maxaa yeelay waa halgan laga yaabo aan dhihi karo 600 sano soo socday. 600 sano marka wixii soo socday isbedeladii soo dhacay, guulihii yimid iyo dhibaatooyinkii shacabka soo gaaray intaba wax maalin iyo 2 lagu sheegi karo ma ah. sidaa darteed ujeedada ugu weyn waxaa weeye dadkani inay gaadhaan aayaka talintooda, dalkoodii iyo dadkoodii iyo diintoodii ee xor ahana in ay maalin u gacanta ku dhigaan ayay jabhaddan u taagan tahay. waana wasiiladii ay dadkanu ku gaadhayeen si kastaba ha noqotee inay xorriyadooda hantaan. waayahay mudane daahir, waxaa kaloon doonayaa inaan ku weydiiyo su-aal la xidhiidha tii iminkaan ku weydiiyey. dabcan onlf waxaad tidhi halkay u taagan tahay iyo halgankeeda iyo himiladeeda waad ka hadashay. yaa lahaa hindisaha, xaggeese lagu bilkay, yaase unkankeedii lahaa ayaad u sheegi karaysaa ummadda soomaaliyeed ee ina daawanaysa? waa run, markii uu fikir jiro sideedaba cid aasaastay oo loo nisbeeyo oo la yidhaahdo aleelahay ururkaas jira iyo fikirkaas wuxuu ka yimid waa hebel iyo hebel iyo hebel ayaa jira. halganka sidiisuba aasaasku dareenka shacabku ayuu ka yimid. waa kii imaaraadkii islaamka ahaa ee jiri jiray ee herer looga talin jiray weligiiba soo socday ee axmed gurey oo hogaaminayay, saciid maxamed cabdilla xasan oo hogaaminayay, kuwii ka dambeeyey hogaaminayeen, kii ka dambeeyey oo ugu dagaalkii ugu weynaa ee 77 ogaadeen wo ee markii dambe sabay Soomaali oo dhan iyo Ethiopia in ay gacanta iskula tagaan. guulo badan ay ka soo hoyeen lowlaa ay dad dhuuni qaatiyaala iyo dad cadawooda jiritaanka Soomaaliyeed ka soo horjeeda ayna ahayna ay guushaasi sii jiri lahayd. si kastaba ha noqotee halgankii Soomaali galbeed markii laga soo noqday dagaalkii dhaqdhaqaaqyadii Soomaali galbeed ee jiray ee gudihii Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya la dhihi jiray ay ku soo noqdeen, waxaa jiray in dana kastoo ay noqotaba maamulkii Soomaaliya hogaaminayay iyo maamulkii Ethiopia hogaaminayay in heshiis macmila ay gaadheen oo markaa laga yaabo in ay bridge jira ay kaga gudbaan. marka arrintaasi dhacday waxaa jirtay in jabhaddii Soomaali galbeed sidii xorriyadda u ahayd ee u dagaalamayeen ee garabkooda Soomaali u helayeen iyo dawladdii Soomaaliyeed jirtay in aynan noqonin oo ay noqoto in iyagii oo dagaalamaya in xogaa la Soomaaliyeeyay. arrintiina ay u ekaatay arrin xuduud lagu dagaalamayo, qadiyaduna ay qadiyad xuduud ay ka weyn tahay. sidaa darteed ayaa dhaqdhaqaaqii jiray ee Soomaali galbeed waxay go'aansadeen in ay bal magac kale ay ku dagaalamaan oo wasiiladoodii ku sii wadaan ay la baxaan. fikirka ayuuna ka dhashay 1984 Agosto ayaana fikirkaasu dad badan baa lahaa. dad badan baa golihii dhexe ee jabhaddii Soomaali galbeed, siyaasiyiintii Soomaaliyeed, saraakiishii Soomaaliyeed ee cadowga Ethiopia la dagaalamayay, intii wanaagga jecleed oo dhan markii laga qaybgeliyey shacabkii tale la weydiiyey guud iyo dibadba, yaa waxaa markii dambe magacii ku guuleystay runtii loona siiyey abaal in ay markaa iyagu ku dhawaaqaan 6 xubnood oo markaa ka mid ahaa dadkii hogaamintahay markaa joogay. xilligaas ayayna dhacday, laakiin waa runtii magacan iyo rabitaankiisa iyo soo jeeditaankiisaba waa mid ka turjumayo oo dadkii halganka ku jiray oo dhan ay lahaayeen. laakiin marka la magac bixinayo runtii 6 xubnood oo ka mid ahaa jabhaddii Soomaali galbeed, ururkii dhalinyarada Soomaali galbeed ayaa markaas go'aansaday si maadaama arrintii xuduud ay kaga wada hadleen Soomaaliya Ethiopia oo halgankii halkaa uusan ugu baabin inuu arrintu ay sii socoto ilaa hadafkii la lahaa la gaadho. marka dadkii maantana badankoodu waa dad shuhada oo dhintay. ilaahay waxaan uga baryaynaa in jannadiisii firdawsi ka waraabiyo, inta nool in ay iyagoo nool ay wixii ay raadinayeen ay gaadhaan. marka saas oo ahaa haddii marka magacii aad rabtaan ragga nool waxaa ka mid ahaa hogaanka arrimaha dibadda ururka ONLF Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi, gudoomiye ku-xigeenka jabhadda ONLF Maxamed Ismaaciil ayaa ka mid ahaa dadka nool ee maanta raggii didibada u aasay magacan maalintii lagu dhawaaqahayay yacnaha yeeshay ka mid ah, yacnaha inay nasiib u yeeshay inay goobjoog ka noqdaan. Sheekh Ibraahim Cabdalla gudoomiye horaa ka mid ah, Cabdullaahi Saciid ka mid ah, Ibraahim Geela ka mid ah, yacnaha raggaasaa ka mid ah runtii
aasasayaasha ururka dhidibada waasay. waa hagaag weli waxaynu ku guda jirnaa qeexitaanka qeybo ka mid ah ujeedada ama kajeedada ONLF ay u taagan tahay. dabcan waxaa jira waxyaabo badan oo Soomaalidu isweydiinayaan ama inta badan u baahan in la hufo ama la dareensiiyo bulshada Soomaaliyeed si ay uga dareen baxdo arinta nooca ah. erey bixinta magaca ONLF qaybtiisa hore dad badan waxay ku dhagan yihiin ama dad badan waxay aaminsan yihiin magaca hore inuu yahay magac beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee degan dhulka Soomaaliyeed ee galbeedka ku yaala. dabcan Soomaalidu waxay tiraahdaa hal liba arkaysa ma godlato. jaahil bixin ayaynu u baahanahay inaynu ka dareen celino bulshada Soomaaliyeed. erey bixintaasi marka la bixinayay ma laga dooday quburo ma loo fariisiyay ma la isweydiiyay dhibaatada ay ku keeni karayso haddii magac qabiil laga dhex arko halganka meesha ka socda ee soo jireenka ahaa. sideed markaa ay u dhacday arintaasi adoo wax nooga yar sheegayo qaabkii erey bixintaas ay ku timid ma aha mid ummadda Soomaaliyeed ee degan gobolka ugu shisheeye ee City ilaa iyo gobolka Liibaan ee xadka Kenya ummadda ku dhaqan magac ay ka baaraan degtay oo ay isla qaadatay oo u aragtay inuu ahmiyad ama ujeedo fog maaragtay leeyahay mid ahayd miyay ahayd mise waxay ahayd mid dad gooni ah ama unug gooni ah ama dad dhib gooni ah haystay maskaxdooda ay ka soo maaxatay. arintaasi maxaad kaga jaahil bixin karaysaa bulshada Soomaaliyeed ee aaminsan in aysan sida aad hadalka ama quruxda badan aad u dhigtay uusan ahayn. waa su'aal runtii aada muhiim u ah. waxaana moodaa marar fara badan oo maxafalada shirarka la iskugu yimaado ama dareenka Soomaaliyeed mujtamaca Soomaaliyeed runtii soo noqnoqotay inay tahay su'aashaasi. waana su'aal runtii habboon in la isweydiiyo. way soo noqnoqotay kaliya in looga tagana maahe mar walba runtii in si loo helo waxay dadkan wada leeyihiin in arrintaa loo sharxo maalin walbana aad ka jawaabto waa wax loo baahan yahay weeye. haddaan gudaha u galo waxaan leeyahay magacan waa magac laga baaraan degay Soomaali oo dhan saad ogtahay ogaadeen ama Soomaali galbeed dhulka la yiraahdo qabaa'ilada Soomaaliyeed degan way ka fara badan yihiin kuwa jamhuuriyadda Soomaaliya la dhigi jiray deganaa way ka fara badan yihiin. 20 qabiil baa lagu sheegaa inay Soomaaliya degto 30 qabiil baa lagu sheegaa inay degto gobolkan degaan. marka halgankii soo jireenka ee hadda ka soo sheekeynayna dhamaantood ka mid bay ahaayeen kan in la aas-aasana dhamaantood ka mid bay ahaayeen. marka waxaa laga yaabaa in magac baa ka muuqda waa run waxay u qaateen waxaan dhihi karaa istiraatiijiyad baa jirtay maadaama magacii Soomaali galbeed oo markaas arrin xuduud laga dhigay haddana laga dhigay arrin Soomaaliya oo rabta inay xuduudkeeda difaacato ama Soomaaliya oo wax rabta markaas Ethiopia iyo Soomaaliya oo markaas iyadana gaar ahaan leh ana ka wada hadlaan ay u noqonin maxaan qaadanaa oo xiga yay noqotay. waxaa la istusay magacyada meesha yaalay magacyadii gumaysiga ka bixiyay uu kamid yihiin oo British Somaliland uu kamid tahay ogaadeen kamid yahay laanka Soomaalida faraha badan isticmaalaysa ay kamid yihiin. يعني أمر مجا بوح علاقة مركز استراتيجي أهان تاريخ أهان إنه يهي مجا يدي اللي ينوجو جميستي وجميس اللي يوجو بحماجة كمان إنه يهي سيد عدرت هنا مركز لقى باراندج أو خبرة دي أقانته لهذه كوي هلجن كتاريخ لكلها هي شعب كي هي سياسيين كي دليل هي أنا كهلان ليجوا وسيلة إن وسيلة هان أنا قاعد إنه مجا عن سيدي أيان علاقاتي مركز وحن كلام كل شيء هي إن جبهة قله هذا الدحى كنت جيد فلنتا أساسياش هذه حبنا هذه وقامت عيدا كذا جاليده هذا الدبدة لما هو حنده كرا قبيل صوماليات أو كميد هاي متشرو صوماليات نو حنلاها مجعني ووسيلة إنه كو قال إنه ماشاس نك كستهدو وتشدد الأول إنه وحوي عدو وقعنا أسكدر قانو جبهة وحكي سود ويريسا إن أما مجا قبيل هلبحه أما مجا كلا أو ونكسن أو كلا يسوي مركا أو غرتون ونكسن هلبحه وتشدد إن نقطنا عدو الله دجالنا وح أي نولين هاي إنه إنه كتشنه مجمعنا وحوي إنه ماشى كوب قارنه حفظنا وحوي إنه ماشى كوب قارنه مرك حرية دي وحن رادين إن اللي قارنه شعب هيا إسكاله مجا يلبح هيان علن كأي قادن هيان عاصمة ده يسميسان هيان ووح شعب كوياله ريه بالله أمياله أو أن لفن أمياله dad kan dhiman haya ee hogaamin haya ee naftooda hur haya kaliya inay halka gaarsiiyaan bay u socdaan mooyeen inay taliyaan oo ma socdeen waxa loo socdo waa in dadka shacabka la gaarsiiyo waxoodii ka dir dhaba daga city daga iyo ka mooyaala daga ka daroor daga
iyo ka wardheer xuduudkeeda dega midka Shilaabi iyo Mustaxiil iyo Feerfeeri intaa dega yaa dalkan iska leh dadkana waa dadkoodii dhulkana uu ka wada maqan yahay waxaana leeyahay intaas oo dhan halgankan ka mid weeye iyaga ayuu ku taagan yahay waana halgankoodii magacuna muhiim ma waxaad arkaysaa مثلا hadda waxa loo dabaaldegahay Tigray Liberation Front wax la yiraahdo jabhadda Tigreega dabaaldegeedii waa qabiil yar oo minority Ethiopia ka oo meelaha galbeedka ama waqooyiga fog dega Ethiopia yacnaha waxaad arkaysaa madaxweynihii Soomaaliya maamul goboleedyada Soomaaliya oo dhan baa jabhad qabiil ah loogu tagay oo Tigray ah marka aan marka qaar waxaan dhihi lahaaba kuwanaba Soomaali la oo Islaan la ah hadii xataa magac aqoonsan hayaan waxa weeye magacan iyagii baaba leh waa Soomaali waa Islaan dalkoodii buu leeyahay way afgaranayaan iyaga leh oo xataa wuxuu sheegi karaan kuween afgaranayni la diinayn la dalayn la qabiilayn bayba magaca Tigray uga raali noqdeen in xataa noqdaan oo dalkooda ku xoreysteen Ethiopia iyo Tigray iyo Eritrea oo labada TPLF iyo EPLF oo laba magac qabiil wata laakiin deegaan ay ku hoos galayeen bay ku xoreeyeen waa wasiilada inuu wax ku xoreysanayno halgankan waa halganka shacabka iska leh inta ku jirta ee ka qayb galanaysan way ku mahadsiin waana waxoodi la shukr cala waajib weeye inta ka maqan ee maskaxdooda waxoogaga lagu furfurayna waxaan leeyahay islaamnimo uga qayb gala Soomaalinimo uga qayb gala Soomaalidu waa xigtiye xigaal iyo dad wada dhashay weeye hadii xataa uu qabiil kale yahay aad aragtay inuu yahay waajib ay kugu tahay inaad taageerto maxaa yeelay waa qof Soomaali ah Soomaaliduna way isku taageeri jirtay oo way xataa waa la isku heeliyaaba marka waxaan leeyahay qabiil ma aha halkankana waa lagu wada jiraa hogaamintiisu kamid yahay kuwa maalin walba u shahiidaya yaa waxa ku jira qabiil aan qoyska la sheegay aan ahayn oo qabaa'ilada Soomaaliyeed oo dhan waliba aan ku sheegahay maanta gudaha ogaadeynaya ragga ugu sareeya ee hogaaminaya inayna aan ku sheegayaa Soomaalida u sheegayaa ragga ugu sareeya hogaaminaya tibada ay gudaha jooga inayna qabiilka ahayn marka Soomaalidu u dhantahay waana wasiilada inuu wax ku raadinaynay wal ka sii wanaagsan hadaynu helno ka qayb galayna laakiin ujeedaduna waxay tahay cadawga inaynu iska dhicino magac kasta aynu iskaga dhicinay cadawga markaynu iskaga dhicinayno ka tashanayna magacana aayad quraan inaguma xukumin waa hagaag mudane daahir taariikh dheer baad ka soo sheekaysay dabcan waxaan doonayaa inaan wax kaa weydiiyo waxaa jira arrimo inta badan u baahan in la faguro ama laga hadlo dowladda Ethiopia ama dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ee uu hogaamiyo mudane Cabdi Maxamed Cumar dabcan dowlad ahaan iyo kilil ahaan waa aad waxay leeyihiin awood ballaaran oo mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale ah waxaad ka hadashay halgan in lagu jiro waxaad ka hadashay himilo fog umadeed in lagu jiro sidee idin kugu suurtageli karaysaa dowlad guun ah oo dhaqaale ahaan idinka awood badan siyaasad ahaanna maanta la oran karayo geeska Afrika iyagaaba haabka ku dhigay inaad u babac dhigtaan idinkoo aysan jirin cid maanta aad sheegi karaysaan ama dowlad gooni ah oo aad ku tiirsan tihiin sideed arintaas ugu soo bandhigi karaysaa bulshada adoo hadalkaaga soo koobayo Faisal waa arrin meesha ku jirta waa su'aal muhiim ah in la isweydiiyana runtii u baahan laakiin waxa xaqiiqo oo dhab ah jirta Ethiopia waa dowlad guuna dad fara badan population fara badan leh 90 milyan kor dhaaf sida la leeyahay waxaa jira nidaam Soomaaliyeed oo la shaqeysto oo meesha ka shaqeeya waxaa jira dhaqdhaqaaqaas jira inuu ka hadlaynay dadka qaarkood waa isbidahayaan Soomaaliya Ethiopia oo maanta badweynta Hindiya joogta say jabhad gudaha ogaadeynaya ama Soomaali galbeed ee ugu la dagaalami kartaa in la isweydiiyo wax meesha ku jira weeye laakiin waxaad ogaataa oo dhaba sideedaba waa kii الله سبحانه وتعالى وحينوش كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة يعني وحاول هرت قفك مسلم كمركة هاي وحدا من يسكو إن وحلا دجال ما يسويها عدو قال حدنا كوسو دولو دلك حاجة هيستا وحاول يدد كان وعدد المسلمين ومن قتل دون ماله وأهله وحاول يفوى شيء قفك نوع عمرك آمننا وحاول من نصر ويمشي هذا وأنه حدو النول هنا وشرفكم النول هذا حدو انتينا إنه إله أكيس أجر كهلايو سيدا بالعكس جاذا كاسو هرجيدا هدو نول يهينا عديدي بكون نولان هيا وقف ظالم أو عدل مية هدو ودنتنا دي عذاب إلهي تاسو هرت قف نفتي وراها الجميع وآمنة يا بدك لو حد وقعتها حاجي وكي أبوانك الصومالي الله مسلم كما أبي سبب ولا أنا مدح كاجويني يعني وحاول يصير كستبه ولا جاء أود بدني هي قفكو ويعني هي كما قنع هيو كاحق بنا هيون أنت أول حاجة هاجتو طبعا اوكي انا هوس سو دغو maamul baa jira taariikhda marka dib u eegto guumaysiyaasha sideedaba waxyaabaha wasiilooyinka adeegsadaan ay koow ka tahay dadka inay iyaga isku adeegsadaan
dadka nidaamka meesha ka jira ee cabdi maxamed cumar uu madaxweynaha ka yahay ciidanka uu samaystay nidaamka ka jira horta waa dadka nagi waa shacabkii Soomaaliyeed ee meesha joogay way waxaan aaminsanahay inaan anigu maanta xorriyad haysta iyagu inay xorriyad haysanin anigu maanta waan hadlayaa laakiin waxa laga yaabaa isagu afka uu ku hadlayo inuusan afkiisa ahayn oo afsaa dheh la yidhi haddii uu dhihi waayana berrito uu ciqaab mudanayo mithaal yar baan kuu sheegay dalkan waxaa weeye inta iyagu qiranayaan waa 5 milyan iyo badh laakiin waa dad 8 milyan kor u dhaafa Soomaalida ee dhulkan la degan la gumaysto Ethiopia dastuur bay leedahay dastuurka ay leedahay kaliya hatta xuquuqda ay ku lahaayeen kama raadsan karaan mana weydiisan karaan saad la socoto mesela waxaa jira Ethiopia dastuurkeeda waxaa boqolkii kunba xildhibaan federaalka ah ay leeyihiin Tigray oo ah 3 milyan waxay ku leedahay baarlamaanka 48 xildhibaan iyo ka badan wali inay konton yihiin baan marayn Soomaalida oo 8 milyan ahna waxay ku leedahay meeshay 80 kala aan lahayd 23 waxaa la yiraahdaa xildhibaanada Soomaalida ka maqan Tigrayga la siiyay lamana weydiisanin ana waan leeyahay adaan ku leeyahay waxaad leedahayna waan qaadanayaa way marka waxaad garan karaysaa koow inay xuquuqda ku lahayn meesha inay ku balahayn xuquuqda hadii xataa ay Ethiopia u shaqeynay ku lahayn mid xigta waxa weeye dalkani waa dal balaaran oo aad u weyn oo xuduud dheer Soomaali la leh waxa weeye isirnimadooda laba dagaalamaya oo waxa la rabaa in laga tirtiro inay Soomaali yihiin oo ay ku faanaan ka faanaan Soomaalinimada u faanaan Ethiopianimada oo dabcan qaadanaynin waxaad arkaysaa in ay marka waxbarashada hay'adaha waaweyn oo dawladda wax soo saarka sida hay'adda electroniga hay'adaha yacnaha macdanta baara kuwa boostada iyo isgaarsiinta waxaas oo dhan xataa shaqaalaha loogama ogolo Soomaalidu inay ka noqdaan yacni waxyaalahaas oo dhan baa waxaad arkaysaa dadkan inay dad dulman yihiin kali ahana Algeria oo kale mesela 1 milyan baa ku dhimatay oo la shaqaaleysiiyay bariga gumaysiga 1 milyan oo qof oo Algerian ah ku dhintay mustaqbalkeena maxay dhaxaleen dadkii wadadkan hadda Faransiiska iyo meelaha nool in gumaysiga ay markii dambe qaadaan marka kuwan waxaan aaminsanahay dawlad hormartayna ma aho meel loo qaado ma leh waxa weeye dadkoodaas ay ilaahay baday inay meesha ku noolaadaan bay ilaahay ku abuuray inay ka qaxaana ma rabno waa inay noolaadaan hadday Ethiopia ay ku dhex noolaan hayaan wax la qabsan hayaan iyo hadday qoor qaadan dagaalam hayaan laakiin waxa loo baahan yahay waxa weeye ka xildhibaanka federaalka ku jira kelilka ku jira ka madaxweynaha sheegan haya waa in ay noqdaan kuwo dadkooda iyo dalkooda matalayo wax u raadinaya waxyaabaha kale bahdilaada waxaad ka arkaysaa waxyaabaha Ethiopianimadeeda sida waxaad moodaa kaliya inay ka jirto jigjiga iyo agagaarkeeda oo in Oromiya ka jirin oo Anfar ka jirin oo Gambela ka jirin oo qowmiyadaha Ethiopia kale xataa aysan ka jirin waxa Ethiopia kalaba ku kala tagtay in Soomaalida lagu fuliyo waxyaabo runtii aad iyo aad loola yaabay weeye fikirkan ah in walaalaha Soomaalida la isku dilayna damid hadda bilowday ma aha waa mid soo jiray oo gumaysi oo dhan uu yacnaha dhaqan u leeyahay waa dhaqan gumaysi sidiisaba in qofka ka soo horjeeda dadkiisa loo adeegsado dadkana la isnacsiiyo marka dambana wiil iyo aabihii isa salaami waayaan ninkii xaaskiisa ay kala shakiga noocaas dad ku nool weeye oo cidhiid u baahan oo gurmad u baahan qudhigooda in la badbaadiyo weeye runtii dadka maanta meesha ku nool sideedaba qofku waxa deeqda inuu xor ku hadlo oo uu nafsadiisu uu xor yahay ma deeqdo inuu malaayiin haysto iyo inuu gaari qurux badan ku socdo iyo in nal meel looga shido nalka iyo barwaaqada la sheegayo qofka ku noolaan lahaa baa loo baahan yahay qofka hadduu isagiiba nooleen waxba nal meel laga shido oo ma aynayo waxaan xaqiiqo ku ogahay madaxweynaha maanta kelilka hadda sheegtay Cabdi Maxamed Cumar lafsadiisa dameer gaari baa gurigiisa looga dhaamiyaa waxa xiga dacaayadana ma waxa xaqiiqo dhab hadda maanta hadii aad jigjiga la hadashado weydiiso next door ku wadagan 60 bir baa maalintii biyo loogu dhaamiyaa yacnaha marka in khiyaaliga kale ee sawirka la waxa weeye 600 milyan weeye miisaaniyada kelilka marka laga reebo dakhliga kelilkan uu soo saaro lacagtaas noocaas way ka badan tahay dadka Soomaalida hataa inay horumar ku gaaraan marka in horumar loo arko yacnaha nal meel laga shiday iyo jid meel waxay oo 25 sano iyo ka badan socday ma aha marka dadkaas qowdhigooda waxaan leeyahay inta ka dhididay waxan yaaba xor ku jirtay iyaga gumaysiga dhabta ku jiraan leeyahay okay waa yahay haddaynu halkii ka sii wadno barnaamijkeennii aynu kaga hadlaynay taajka dhiilada dabcan mudane daahir waxaa kaloo doonay inaan ku weydiiyo su-aaltii iminka la xidhiidha saad sheegtay xilli aad fog ayaa la asaasay jamhadda xoreynta Ogaadeniya
ummadda Soomaaliyeed waxaanu doonaynaa ama ay doonaysaa inay isweydiiyaan ama ay u soo bandhigtaan hadda tihiin xubnaha sare ee Jamhadda Xoreynta Ogaadeniya jamhaddu maadaama inta ay dagaalamaysay ma jirtaa gobollo gooni ah oo jamhaddu ay ka taliso degmooyin ay jamhaddu ka taliso ama deegaano u gaar ah oo calankooda uu ka taagan yahay bulshadooduna si nabad ah ugu nooshahay haday jirin waa maxay ujeedada ama hadafka imika ama hawsha ama qorshaha aad ku jirtaan ee ugu talagashay inaad kaga hortagtaan gumeysiga aad imika aad ka sheekeynayso dhinaca kale dad badan oo Soomaaliyeed oo ku dhaqan dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo hoggaanku u yahay mudane Cabdi Maxamed Cumar waxay aaminsan yihiin in barqad iyo baraara ku jiraan dhulka waxa ka jira horumar waxa la sameeyay wadooyin balbalaaran oo hore u jirin waxa jira daaman badan oo biyo xireen badan oo loo soo weeciyay waxa jira horumar ka yimid waxa loo yaqaano xoolo dhaqato beerley xoolo dhaqatadiyo dib loo habeeyay oo deegaano loo sameeyay waxa jira jaamacado la furay iskuulo sare waxa jira caafimaad waxa jira MCHyo waxaas oo dhan ma jirin indihiinu miyayna qaban dadka jamhadda OLF horumarka inta la eg ee mudane Cabdi Cumar iyo ragii ka horeeyay Daawud iyo Qadar Macalin iyo ragii ka sii horeeyay ay qabteen miyaynu indihiina arag maxaa ku dafiraysan maxaa tahay waxa idinku aad cadeyn u haysan in waxa aanu ka hadlaynay aysan waxba ka jirin waa runtii waa su'aal muhiim aad u weeye waa laba su'aalood baan kala qaadanayaa tan horumarka iyo waxyaabaha kale laakiin tan hore oo ah muddo soo dagaalamayseen meel ay haystaan calanka taagan ma jirta haddii si jirto iyo waxa ka dambe runtii waxa weeye 9 gobol weey wadankeena 9 gobol dawladda Itoobiya si rasmi ah waxa uga talisaa 9 magaalo waaweyn waxaan dhihi karaa in ka badan 70 degmo oo degmooyinka tuulooyinka iska dhaaf oo dhowr kuna waxa weeye saameynta ay ku leeyihiin kaliya waxa weeye waxa ay ku leeyihiin maalinta ay tagaan oo ay gumaad ka geystaan iyo xabaalo wadareedyo iyo xabsi kaliya ay ku leeyihiin wax kale ay ku leeyihiin oo runtii maanta la taaban karaa ma jiro calankuna meel badan buu ka taagan yahay yani waxa weeye jigjiga iyo dhagaxbuur iyo dhowr magaalo oo kale oo lamid ah ciidamada jooga oo kolka horena joogi jiray oo difaaci Soomaaliya loogu talagalay cadawga ila dawlad cadawga guunay ahayd haddana lagu sii xoojiyay yaa jira kaliya waxa weeye horta saameynta ay ku leeyihiin waa inay dadka soo dhibaateeyaan maalinta ay baxaana waa maalin ay wax soo dilahayaan soo boobahayaan soo dhacayaan intaas aan taas ooga baxo iyo waxa weeye iyo xagay maamulshay maxay gaadhay waxa jira dad horumar baa jira qaar waan ka hadlaan malaynayaa oo dawatan laamiyadii ka hadlayay waxa la yaab kale waxa weeye oo cajiibka ah waxa jirta jaamacad hal jaamacad baa lagu soo xilaliyaa jigjiga jira dalkan xaq jaamacad ma soo haynay wuxuu lahaa in ka badan 10 iyo 20 jaamacadood baa xaq u lahaa hal jaamacado jigjiga la yiraahdo oo boqolkiiba 83 ardayda dhigatay Ethiopian yihiin oo 17 Soomaali ka yihiin baa ka jirta meesha jaamacadaas jirta waxaan leeyahay inta dhigatana de kulli way ka faa'iideysanayso hadii ka faa'iideysanayso weeyaan oo waa jaamacad jirta way laakiin waxay ahayd in 10 kale iyo 20 kale 30 kale bay sameeyeen iyaga xaq u lahaayeen marka in taas looga dhiga sabab horumar baa la sameeyay ma taasi marka la eego dhibaatada la gaarsiiyay marka la eego xaq ay u lahaayeen marka la eego gumeysiga meesha ka jiro jaamacadaas ma jirta ka dhigan tahay markaas labo boqolkiiba 17 ka Soomaalida ee dhiganaysa waxa cajiibka waxa weeye dugsiyada sare ee Wardheer Dhagaxbuur maxaa la dhihi jiray degmooyinka Daroor iyo Gaashaami iyo Ogbarri iyo Goday iyo ilaa Liibaan iyo Fiiq iyo iskuulaadkii dugsiyada sare ahaa meel la geeyay la leeyahay iyagiiba meeshaas waxana inta marka dambana qaarka sidii yar lagu qasbahaya in xoog lagu askariyeeyo oo ciidamada laga dhigo si dhaqaaqa wadaniga ah loogu horgeeyo isla sidaas darteed waxaad arkaysaa wax lagu leeyahay Puntland baa waxa la siiyay deeq waxbarasho oo kuna Somaliland baa waxa la siiyay deeq waxbarasho oo kuna Jubaland baa waxa la siiyay dhowr boqol oo waxbarasho kana waxa la siiyay Muqdisho intaas kii joogayna banaanku fadhiya yani marka taa qudhigeedu in ay dadku fahmaan baa loo baahan yahay waxa weeye qofka sidii subas meesha uu wax ku soo barta saameyn ba ku yeelataa dadkaasna waa dad la Itoobiyaanayeen kama xumin in Somaliland Puntland Muqdisho Kismaayo Boorama iyo Djibouti iyo meel kaste in intii hadiiba loo awoodo waxbarasho la geeyo laakiin dadkaasi waa dadkii in the future-ka iyagoo Itoobiya la rabo in Soomaaliya lagu qabsado marka jaamacadani inteeda badan waxa lagu fuliyay waxa weeye waa Itoobiyaan Soomaaliya lagu yani dadkii Soomaaliyeed laga dhigayo inay Itoobiyaan yihiin
laakiin jaamacada way jirtaa waa jaamacada weyn dadku dhigtaan kulli ka faa'iideysana waa jirtaa laakiin dadku xaq ma leeyahay waa midda kale waxaa sheegtay in daamka horta daamka Ethiopia iskala wax inaga khuseeyo ma jiro Ethiopia Masar iyo Suudaan iyo wabiyaasha Nile la isku ku hardabayaan quwadaha inaga xoog badan weeyaan 400 kun oo masaari ah oo ciidan ah u diyaarsan daamka iyo wixii iyo Suudaan iyo wax la mid ah marka inaga ma khuseeyo laakiin waxa la yaab kale ee ajiibka waxa weeye 9 milyan oo Ethiopian kama qayb qaataan laakiin waxaad arkaysaa ganacsatada Soomaalida TV-yada Soomaalida xawaaladihii Soomaalida in xoolo lagu ururinayo daamka biyo xidhanka balse waxaad arkaysaa Garowe iyo Hargeysa iyo Muqdisho iyo Kismaayo iyo meel lamida in lacag looga ururinayo biyo xidhanka halka ku yaala iyaga iyo dadkoodina ay ka baahan yihiin marka biyo xidhankaas mid dadkan khuseeyo ma baahba waxaad arkaysaa haddaad aragto hadda 2 week ka hor Jigjiga iyo magaalooyinka roorooro dhan intay gaari karaanba in kiyo dadkii la soo geliyay xoolihiina soo gatay leeyahay sheer ka gata biyo xidhanka galbeedka Ethiopia ku yaala ee dawladahaas isku haystaan oo shalay laga hadlayay waxa ay Masar ay heshiis ku gashay taaka inta leeg inaan laga hoos dhigaynin yana marka waxyaalaha horta dhaamkuna sheekadiisu waa nooca waa run barnaamij waxaa jira loogu magac daray oo ay ka sheegaan xoolo dhaqato beeraley ma baahan yihiin horta dadkan waa dad xoolo dhaqata xoolahooda ku baraareen kuna filan yihiin beeraleyna intii lahayd beerahoodaas ay ku qanacsan yihiin dadkan waxa weeye in waxay ahaayeen asalnimadooda laga tirtiro oo qofkii geela dhaqan jiray ee looda dhaqan jiray ariga dhaqan jiray ee fardaha iyo ku baraaray ee baadiyaha jooga in la soo raro meesha la keeno horta xoolihiisa la baabi'iyo markii xoolihiisa la baabi'iyo wax bedilana markuu u waayo qofkaas wuxuu ku qasban yahay inuu isku dhiibo oo istislaam uu sameeyo inuu isku dhiibo cadawgii meesha ku soo hareystay taa waxa la mid ah meelaha wabiyaasha waxay rabtaa Ethiopia inay soo dejiso dad Ethiopian oo fara badan wabiga Shabeelle dadka ay dadkan la isku dhaxdaro marka dambena degmooyin iyo tuulooyin laga sameeyo ay dadka Ethiopianka lagu abuuro si maadaama 9 milyan Ethiopia tahay 5 milyan loo liqo waa qaab lagu soo dejinayo Ethiopiyadii aan dhulka haysanin 20% markii la isku celceliyay Ethiopia 20 mitir buu qofka Ethiopianka leeyahay anigu laakiin Soomaali baan ahayo waxa laga yaabaa qofkayga Soomaaliga inuu ku soo aado in ka badan 30 kilomitir yani taas duulaan lagu yahay looma jeedo in dadkan wax loogu qabto de waxaan laga hadlayana in caafimaad aan ka hadallo oo aan meesha ka hadallo waxay ka muuqataa war dhafoor ugu yaala baa leeyahay mogta dadka waxay ka muuqan lahayd inta ku nool maanta meesha joogta weligaa miyaad aragtay TV-yaal baa Soomaaliya warar ka soo daayay afka Soomaaliya ku hadla Hargeysa daawanaysa waxaad arkaysaa waxa la leeyahay maanta guryaha gubtay oo musiiba ka dhacday Garowaad fiirinaysa waxa la leeyahay maanta dad qaxooti oo meesha ku soo qaxay baa dhibaato gaadhay Shabeelle Jowhar baa arkaysaa waxaad maqlaysaa wabiyaal baa fatahay waa wax iska dabiici oo jira weey weliga barwaaqa la gaaray mooyeen dhibaata ka dhacday wadankan waxa weeye haddadan xilligan hadda roob baa daay laakiin abaarta ugu xumayd oo xoolo ku baaba'een baa jiray cid sheegaysa ma arkaysid musiibooyinka caadiga ah bani aadam ku dhaco dhan baa ku dhacaya cid sheegaysa ma jirto xuduudadii baa jira cid ku dhaca cid sheegaysa ma jiro intaas oo dhan waxa ka sii daran dadkan xoolo ilaahan jireen beerana way dhaqan jireen beerahoodii markay abuurtaan yaa waxaa la keenaa in qamandi ama wax noocaas si loogu dilo qofka inuu wax soo saarkiisa u sameeysan marka dagaal noocaas ah ka jira dadkane horumar kama jiro marka loo eego Soomaaliya oo 5 sano dawlad ka jirin waxa arkaysaa isgaarsiintan meesha dawladda doonta la kartaa 10 sano ka hor baa la hadlaysay maanta waxa lagu leeyahay Jigjiga mobile leh Jigjiga waxa weeye 40 sano ka hor bay telefoon lahayd marka in la yiraahdo Jigjiga meesha maxaas iyo Moqokori oo ku yaala cirifka ugu sareeya ee Hiiraan laga hadlay 20 sano hor mobile laga isticmaalay marka waxa weeye horumarku waa nooca laga sheegayo waa mid media kaliya loo isticmaalayo dadka lagu bahdilhayaan dhigi karaa waa hagaag weli waxaan ugu guda jirnaa barnaamijkeennii aynu ugu talagalnay inaynu maanta kusoo tabino TV-ga Airo TV oo aan ugu magac darnay taajka dhiilada waxaana aynu weli ku guda jirnaa inaynu sii wareysano mudane Daahir Tamuche mudane Daahir waxaan doonayaa kale inaan ku weydiiyo su'aal in badan la isweydiinayo oo dad badan ay u jeel qabaan in aad ka jahil bixisaan su'aashaasi waxa weeyaan maadaama aad tihiin jamacad halgan ku jirta halganku wuxuu u baahan yahay waxa ugu muhiimsan ama buddig u ah ama halbowlo oo dhaqaale dabcan waxa jiri karta ama in badan aanu ka dhageysanay madaxdiina ama dhulka Soomaalida ama website-ada aanu inta badan ku aragnaa inay jireen xilliyo qaarkood meelaha ku tiirsaneedeen ama dawladaha ku tiirsaneedeen ha noqdaan kuwa jaarka ha noqdaan kuwa caalami ah maanta halgankan aad ku jirtaan intaas soo jiray maxaa idin suurto geliyay dhaqaalaha inta la eg ee aad dibadaha ku martaan ee aad jaalidaha isugu keentaan
ee aad hubka iyo saanada iyo cuntada iyo dawooyinka aad ku soo iibsataan dhaqaalaha intaa leeg yaa idinka caawiya xagoos idinka soo galaa adigoo soo koobaya barnaamijkaaga aad bay u mahadsantahay waa su-aal muhiima weeye runtii saan marka hore ku bilaabay halgan waa halgan shacba weeye gudi iyo dibadba halgankani dhaqaalihiisu shacabkiisu ku tiirsan yahay walaa dawlad walaa hay-ad wax siisaan jirin shacabka kuwa dibadda joogay ee wareegahaya iyo kuwa halgamahaya ee qoriga wada intaba waxay ku tiirsan yihiin waa shacabkoodii shacab 8 milyan oo Soomaaliyeed alxamdulillah baanu haysanaa iyagaana taageeraya in ka badan 200 kun baa dibadda jooga iyaga ayaana intii dibadda joogtay iyo inta kale geysan karaan iyo agoontoodana u taagan midaas waa midda kale ee waxa weeye oo ahayd hubka iyo saanada iyo xagad ka yeeshaan hubka iyo saanada sideedaba waxa weeye marar badanna waan sheegnay haddana waan ku celcelinaynaa saanada cadowga gacantiisa ku jirtaan ku dagaalanaa iyaga ayaana ka furanaa waayahay haddana halkii kasii wado dabcan waxaa kaloon doonaya inaan wax kaa weydiiyo waxaa jira xasuuq ba-an iyo mooroduug badan iyo dhibaatooyin badan oo ka dhaca dhulweynaha aad iminka ka sheekeynayso ee Ogaadeniya dabcan waxaa jiro hooyooyin badan oo hanadadoodii ku waayay halganka iminka aad ka sheekeynayso waxaa jiro ooriyo badan oo gambacad oo halkaa iyagana ku waayay raggoogii waxaa jiro hablo gabadhnimadoodii ku waayay kufsi ay u geysanayaan nimanka ku magacaaban ama dowladda ama liyo booliska waxaa jiro salaadiin iyo cuqaal iyo dhalinyaro lagu gubay iyagoo nool nolosha lagu baabiiyey dabcan waxaasoo dhibaato ah ama hagardaamo ah waxaa loogu geysanayaa waa idinka waxyaabaha aad samaynaysaan idinkoo u turaya shacabkiinaasi ilxayiigta ah ee deegaanka ku nool ee rag iyo dumarba leh maxaad isugu dayi weydeen inaad inta hubka dhigtaan aad arrintiina u beedhaan qaab siyaasadeed iyo qaab wada hadal idinkoo u turayo shacabka masaakiinta ee habeen maalin dhibaatada ay ku jirta Faisal waa runtii waa su'aal murugadeeda leh laakiin waxaan ku sheegayaa halgankan shacabka iska leh hadday shacabkaas intay go'aansan yiraahdaan dagaalka joojiya ata anna waan joojin karaa laakiin waxaad ogaataa kuwa la dilahaye ee la gubahaye ee la kufsanhaye ee xabsiyada Ogaadeen 1 iyo 2 iyo kuwa kale gobolada iyo degmooyinka jiro dhan waxa loo qiyaasaa ilaa 60,000 inay dadka xiran hadayna ka bandayn Aljazeera dhowr sano ka hor barnaamijka ka diyaarsay wax ku tilmaamay waxay tiri waa xabsi dhalada ka furan bay wadanka dhan bay ku tilmaantay yanaha dadkaas oo dhan iyagaas waxaad moodaa kullama cadaadis ku sii bato rabitaanka xorriyadooda inay soo dhawaadaan inay aaminsan yihiin sidana waxaad ogaataa markuu xanuunku bato oo dhibku bato umba guushiina soo dhawaataa marka waxaad moodaa dadku iyagiiba aynan ogolayn horta hubka dhigis wax la yiraahdo laakiin marar fara badan arrimo silmi ah xabadu waa wasiilo oo dhan siyaasadeed oo dadaalo fara badan ayaa jira iyadaas dadaalka aanu sameeyay iyo kuleylka shacabku ay gaarsiiyeen ayaana baday Ethiopia laftigeedu inay inta adduunka u qaliyata ay tirada waxaan rabaa nimanka in la wada hadashiyo socotana 3 goor baa la wada hadlay haddana maradhow waxa laga yaabaa in wada hadal isku soo noqdo laakiin mar kasta wada hadal isku yimaado shacabku waxay rabaan baa nagu matalaynaa mooyeen waxay shacabku nagula taliyaan way noqon doontaa haddii Ilaahay nafta noo daayo waxaan anagu rabno ma aha anagu adeegayaasha shacabkaas aanu nahay shacabkaasina waxay rabaan haddaba maanan socdeen maanan dagaalameen banaana lama wareegeen korna gudaha lama wadeen haddayna kuwa gudaha jooga rabitaankooda ay ahayn waayahay waxaynu ku guda jirnaa weli barnaamijkeennii taajka dhiilada qaybihiisa dambe ee barnaamijka ayaanu u sii siqaynaa dabcan waxaa jira mudane daahir jamhad kale oo dhinaciina ka dagaalanta ama dhulka aad degantihiin ama deegaanka Ogaadeniya u dhow oo ciidan la yiraahdo ONF oo ka soo jeedo qoomiyadda Oromiya jamhadaasi marar badan waxaa dhacday in ay guulo ka sheegtaan dhibaato ay u geysteen jamhuuriyadda ama federaalka Ethiopia magaciina oo kale ay wataan deegaan ahaan waa isku soo dhow yihiin qoomiyadda Soomaalida iyo qoomiyadda Oromada maxaad lagu kala saari karayaa ama maxay tahay guulaha idinka aad leedihiin oo ay qolada sheegteen aad ummadda u bandhigi karaysaan maxay tahay haddii ay jiraan arrimaha noocaas ama halgankiina uu isku jeedo yahay waxa idinka dhaxeeya ama aad isku ogtihiin yani ka ONF ahaan iyo qolada Oromada oo aan sheegayo bismillaahi runtii waa su'aal fiican weeyaan Oromadu runtii waa dad darisnahay jabadan OLF waa jabad mucaarada oo iyadana dibadda dhaqdhaqaaq ka wada iyo gudahaba cid kaste oo nidaamka wayaanaha Ethiopia ka taliya ka soo horjeeda waxaan leenahay xiriir wanaagsan dibadda iyo gudahana waan ku kulanaa nidaamkaasi meesha looga takhalusi lahaana waan ka midaysanahay Oromo iyo qowmiyadaha kale Ethiopia sababta Ethiopia qowmiyadaha mucaarad lahayn anfartaale amhaaradaale tikreebaale ciidan xooggan leh waxa le gambeelada
sidaamada oromada intaasoo dhan intaa waxaa si dheer oromadu waa dad aan derisnahay oo inteeda badanna aanu diinna wadaagno dal ahaanna waxyaala fara badan naga dhexeeyaan runtii oo laga yaabo arrimaha xuduudka iyo wixii lamid ah waxaasoo dhan way jiraan marka iyagu waxaan ku qasbannahay man walba inaan xidhiidhada kale ka dhawaan aan la yeelano midda kale jirta waxaa weeye guulaha runtii guul Ethiopia laga sheegto oo dhibaato oo loo geysiyay cidii sheegataba annaga wax muhiim ah hadda noo tahay ma jirto muhiimadda aan u leenahay waxaa weeye kaliya in Ethiopia wax la gaarsiiyo waa sax weey laakiin wixii farsamo ah wixii siyaasada wixii nidaamka kasoo inaan kasoo horjeednaa waanu ka midaysannahay waana iska warqabnaa xiriir fiican baan leenahay mucaaradka Ethiopia oo dhan waayahay gunaanadkii barnaamijkeena iyo su-aalihii ugu dambeeyey ayaynu iminka ku jirnaa dabcan waxaynu doonaynaa inaan wax ka weydiino annagoo haddee ku hadlayno magaca Airo TV ama wariyaasha Airo TV bulshada Soomaaliyeedna doonayno inaynu la qaybsano su-aalahan ku weydiinayno arrimaha siyaasadda ama arrimaha dibadda ee ururka ONLF dabcan waxa uu ka jiraa wadamo badan oo caalamka ah marka la arko buddigiisa ama hoggaanka meelaha ugu muhiimsan waxaan oran karaynaa waddanka maanta joognay Ingiriiska Kenya oo magaalada Nairobi oo kale Australia meelo badan oo sidoo kale waxaa la maqlaa waxaa jira jaaliyada Ogaadeniya oo shirar qabsanayso dabcan dad badan oo Soomaaliyeed marka ay maqlaan jaaliyada Ogaadeniya ayaa shir qabsanaysa si aan haday su'aasha aan ku weydiiyay ayay tan qayb ka tahay oo dhinac kaga soo dhacaysa dad badan oo Soomaaliyeed marka waxay aaminsan yihiin in reer meesha ku kulmayo waxaad inoo sheegtay in hoggaanka ragga buddiga oo ahaa ragga hormuudka ka ah ay yihiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed deegaanadaasi maxaad inooga sheegi karaysaa guulaha aad ka gaadheen in aad bulshada dibadda ku nool ee Soomaaliyeed ee dhulka aad wada leedihiin aad ku hanateen qulubtooda ama meelaha ay kaga soo qayb galeen ama shirarka ay idinkugu yimaadeen mid ka mid ah maxaad soo bandhigi karaysaa bulshada waa su'aal runtii aad u fiican weeye aad baan kugu mahadcelinayaa horta su'aashaan aad weydiiso waliba qaybteeda dambe inta hore haddaan u gudbo runtii jaaliyadaha ka hoggaan arrimo dibadeed ahaan iyo jaaliyadaha dibadda marka laga hadlayo runtii waxaa jirta dhowr iyo 60 jaaliyadood oo dibadda ka dhisan oo wadamada reer galbeedka ka diiwaan gashan kana sharciyeysan مثلا هذا UK oo kale 4 jaaliyadood oo ka sharciyeysan baa jira oo Birmingham, Leeds, Manchester iyo waxay ka jiraan London waa jaaliyad aad waaweyn Scandinavianka Europe inteeda kale waxaa waliba aad iyo aad waxyaalaha la yaab kale inay jaaliyadaha ugu xoog badan ay maanta ka jirto oo xubnaheedu ay gaadhayaan dad 600 oo xubnooda maalin dhawatay ku shireen Malta oo ogtahay jasiirad yar oo loo qaxay inay tahay marka dadka Ingiriiska wuxuu dhihi jiray la yiraahdo calanka Ingiriisku kama dhaco qorraxda marka annagu hadda waxaan isleenahay calanka Soomaalida Ogaadeniya ama ay jabhadani hogaaminaysa kama dhacaba adduunka laana waxa weeye Pacific ugu fog Africa Asia meel walba waxa arkaysaa xilliyo kala duwan iyaga oo marka shirka loo kulmay marka qaarkood qof walba qaarkood ay 12 saacadood kala horeeyaan marka horumar weyn baa ka jira meel walbana way ka jiraan dadka Soomaaliyeed u arka wataan hore nooga soo hadlay inay wax qabiilayiin horta qabiil ma aha waxaan ogaataa qabiilku waa basal wana dhamaan lahaa goor horeyna baabi'il hayn waxna duu qabiil waxna waa mabda waxay inta ma jiro jaaliyad Soomaaliyeed oo kale oo adduunka inta in la ka jirta oo isku xidhan oo hal maamul leh hoggaan baan leenahay ku xigeenaa jira agaasimoyaal waxyaa jira qaaradaa jira gudoomiyaal jaaliyadeed baa jira ururada bulshada ururada dhalinyarada oo SU baa jira ururada haweenka awraa jira waxa jira urur haween oo wadan kasta intaas oo dhan adduunka ka jira yani waxa way intaas oo dhan muusan jireen hadduu xasan qabiil yahay marka waxaad garan karaysaa waa dareen dadku ay ka dareemayaan yaa isu keenay horta waxaas oo dhan dadka Soomaaliyeed waxaanu leenahay halgankan waa kiini waan halgan Soomaaliyeed inta timid way yimaadaan wayna badan yihiin aad bayna ugu mahadsan yihiin inta ka maqan ee laga yaabo inay qaarkood wax go'aan hayaan ama qaarkood laga yaabo inay cadaabtinimo ku maqan yihiin waxaan leeyahay imaada aan isku nimaadno ha laga wada hadlo halkan waa halgankiini hogaamiya jaaliyadihiini idinku madax ka noqda ujeedadeenu ha ahaato inaynu helo dhul xora dad xora diin xora dalkeena inaynu helo way madaxda Soomaaliyeed waxaan dhihi karaa arrimo yar oo aan taan lahaa waa ku farxsanahay baa jiro waxaa jira mesela dhaqaaqyada Soomaaliya ka jira markaad aragto nuuqooyiga ilaa koonfurta ka jira xilli waxaa jiray qofka Soomaaliga ah meel waxa taa fikirkiisa ku sheegtay aysan jirin inuu yimaado jaaliyada Ogaadeniya mooyeen waxaan dhihi karaa madaxan hadda Soomaaliya hogaamisa 20% in ka badan warag jaaliyadan ku xidhnaan jiray
maantana laga yaabaa in qaarkood intay masrax soo istaagaan ay cadaawnimo u muujiyaan ood moodo inay rabeen inay bridge ay ku gaadhaan meesha uu noqdo. marka waxaan leeyahay in badan oo madaxda Soomaaliyeed oo wanaagsan oo waqooyiga oo Djibouti ilaa koonfurta jooga yaa jira oo ku xidhan halgankan. waxaan qabanaa sanad walba shir jaaliyadeed oo adduunka dhana. sanadkii u dambeeyay wuxuu ka dhacay wadankan madax fara badan baa ka soo qaybshay. ururka ISO baa ka soo qayb galay urur Soomaaliyeed waxaa ka soo qayb galay saraakiil Soomaaliyeed oo sarsare waxaa ka soo qayb galay dad Soomaaliya magac kule runtii oo waaweyn oo Zakariye maxalli jiray Xuseen Ciidiid waxaa ka soo qalay Koran Umar Suleymaan waxaa ka soo qayb galay ururaha weyn oo Soomaaliyeed waxaa ka soo qayb galay gobolada Soomaaliyeed jaaliyadihii ka jiray yanaha xubna xildhibaano ah oo ka tirsan ururada Soomaali ururada dawladdan yaa ka soo qayb galay oo kamid yihiin ururka AWSR xubna kamid ah runtii. marka waxaan dhihi karaa way ka soo wada qayb galaan. waxaan rajaynayaa midka hadda soo socdo Norway ka dhici doono inta ilaa hadda aan codsiyadooda hayno inay ka soo qayb galaan. dad badan baa ku jira xildhibaano Soomaaliyeed baa ku jira kuwa Somaliland baa ku jira kuwa Puntland baa ku jira. waxaan rajaynaynaa inta kale ka maqan inay yimaadaan oo ay ka soo qayb galaan waxaana ay u wajahaan wax meesha ku gaar oo aynan colaada la abuurhayo Soomaalinimada ah in laga baxo oo la ogaado dadkan inay wax walba iyagu ismudan yihiin dadkoodina ayaa wax ka maqan. waa hagaag waxaynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena aynu ku soo afmeeraynay waraysigii gaadhka aynu la yeelnay sarkaal ka tirsan golaha dhexe ee jamhadda ONLF mudane Daahir Xasan Cabdullaahi oo ku magac dheer Tamuuje. barnaamijka maanta aynu ka hadlaynay waxaa idin daadahaynayay anigoo Faysal Cabdullaahi Xaaji Cabdi. taajka dhiilada waxa uu noqon doonaa barnaamij taxana oo aynu ku wareysan doono cid walba oo Soomaaliyeed oo aynu doonayno inay bulshada u soo bandhigaan waxa ay go'aanayaan iyo waxa jira. inta aan ku kulmi doono barnaamijka mid lamida waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.